halkan khudbada looga soo jeedin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيدة قدوميها برلمان جيبوتي رئيس وزراء حكومة جيبوتي وزيرها وفدها الدولة ديغان الصومالية إثيوبيا مدحوينها صومالي لان سفيرها هي أقوياها كده شرفت بدن مدن المدنيين مرة هذه بدون مثلا حشمت يقدر له وعن كونه حكومة شعبنا الصومالية ولادينا وحن هبقى أسود الدنيا جمهورية جيبوتي مدحوين حكومة شعبي هي هدف التبع استحق صارت إلى أنت قرونت كيدنت يهرمون تدقنك أفكار هي فرق الصومالي. وحاكم السلام يا بديا تنلينا الصومالية وهي وصوت من دادين يا أوشن بلارن يكسر الدولة أفرقنات إقرارتي في الصومالية. وحان إلوه من حسيدا iyo salaamida guddiga qorista Soomaaliga iyo xeeladayaashii kale ee afka iyo suugaanta Soomaalida intaba horumariyay iyo kuwa hadda ugu taagan horumarinta dadaalka horumarinteeda waxaan mahadsan waxaan madashaan ku fadhinaa xuska sanadguurida afartanaad ee ka soo wareegtay markii farta Soomaaliga qoristeeda si rasmi ah loogu dhawaaqay sanadkii 1970 oo ay ka soo wareegtay 40 sano xilligaa farxadii iyo reerayntii dadka Soomaaliyeed ay qabeen ama ay muujiyeen waxay ku muujiyeen barnaamijyo qoraallo iyo suugaan aad iyo aad u ballaaran tixyar oo ka mid ah gabayadii beriga ay tiriyeen abwaalinta Soomaaliyeed haddii aan soo qaato 22 aamustiyo shaqalka maareeye amran iyo tilmaamiyo gudba aada iyo joogi isku xiriiriya falkaad ereyadiinii ah abyan iyo haddaan magacyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkeygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxaa le nimankii fartaas soo abaabulay amiirnimo san iyo garab jirtay lagu abuureen afafkaa qaraar iyo eregti maxaa ii dhiibeen anaa macallin oo qabo dad loo furo iskuullada waxay ka mid ahay gabay ku tirinay allahu naxariistay cabdulrahman tarawiin sanadkii 1972 markii lagu dhawaaqay ama la aqbalay Soomaaliya afartan jir waa qaangaarka koowaad ee 15 jirka ka dambeeya ummadku afkeedu qornayn gob ma aha aqoonyahanada Soomaaliyeed goor hore ayay dareemeen baahida yeelashada af qoran sida aad wada ogtihiin markii si rasmi ah loo sameeyey guddiga qorista Soomaaliga waxaa la soo bandhigay in ka badan 20 farood oo waagaa Soomaaliyeed oo kala duwan ay dadaal u galeen aqoonyahanada isxilqaamay ayaa ku qoray fartaas qaabaan ama qoraallo kala duwan farahaas waxay isugu jireen laatiin carabi iyo kuwo kala duwan magacyo kala duwan oo kulligood ahaa kuwo madax bannaan ugu dambeyntii waxaa la qaatay farta laatiinka oo maanta af Soomaali ku qoran yahay
kuna hirgala sifantaas u dhaqan gasho waxaa dowladdii Soomaaliya ku dhaqaaqday ololihii wax qoris iyo wax akhriska oo muddo yar ku gaaray miyi iyo magaalada ilaa manaahijta waxbarashada lagu qoray af Soomaali anigu shakhsiyan waxaan ka mid ahaa ardaydii iyo shaqaalihii dowladda loo diray dacwada dalka oo dhan si ay u faafiyaan qorista iyo akhrista iyadoo laga dagaalamayay qoris la'aanta iyo akhris la'aanta statistics la sameeyey ololahaas guushiisii waxaa lagu sheegaa in qorista iyo akhrintu ay Soomaaliya gaartay 55% iyadoo ka soo kacday 2%. waxaan rabaa inaan tilmaamo baahida degdega ah ee loo qabo xasilinta iyo sar u dhigidda qoraalka af Soomaaliya gaar ahaan kala sooca ama kala duwidda qoraalka iyo dhehidda erayada si loo helo af qoraalka u gooni ah oo rasmi ah hal oo ka duwana af guriga ama lahjadaha jira ee Soomaalidu ay leedahay si la mid ah afafka kale ee dunidaba halkaas oo ay dadku u dhawaaqaan erayada hadba si waafaqsan deegaankooda iyo cirdigooda ama kooxda ay markaas ka yihiin mujtamacaas laakiin mar haddii ay timaado qorista eraygu ay tahay hal hab oo isku mid ah oo isku waafaqay dhaqanka uu afku u horeeyo wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo horumarin waxaan halkaan ka bogaadinaya ugu mahad celinaya kuna hambalyeynaya doorkiisa mar walba sida dayaxa kor u iftiimayo walaalkay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele kaalinta mugga leh ee uu ka qaatay dhiirigelinta u adeegidda dhaqanka Soomaaliyeed iyo daryeelka dadka ka shaqeeya gaar ahaan xilligii burburkii Soomaaliya miraha dadaalkaas waxaa ka mid ah kulankan aan maanta u fadhino xuska sanadguurada afartanaad ee ka soo wareegtay qoristii farta Soomaaliya sidoo kale dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya waxay soo noolin weyn u sameeyeen dhaqanka Soomaalida gaar ahaan afka iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo mar walba si rasmi ah looga daawado telefishinkooda sidoo kale waxay ku guulaysteen inay af Soomaaliya ka dhigaan afka rasmiga ah ee dowladda deegaanka ay ku shaqeyso sidoo hadda noo tilmaamay walaalkeena ay waxbarashadina door weyn ay ka qaadatay taasi waxay aad iyo aad qayb weyn uga qaadanaysaa horumarinta luqadda iyo farta intaba naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed waa urur ay ku bahoobeen aqoon-yahano Soomaaliyeed oo dadaal ugu jira ilaalinta iyo gelinta farta iyo afka Soomaaliya wuxuuna ururkaas isu abaabulay sida uu u ururin lahaa maamuli lahaa islamarkaana u hirgelin lahaa af Soomaali qoran oo taabagal aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin runtii waxaa xushmad mudan doorka warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliya ku leedahay faafinta iyo kobcinta afka iyo dhaqanka Soomaalida maanta waxaa jira boqolaal goobo oo websites ah tiro badan oo idaacado ah iyo TV-yo iyo weliba wargeysyo kuwaas oo dhammaantood door weyn ka qaatay xiriirka iyo faafinta afka Soomaaliya waxaan leeyahay dadka hawshaas hayo sii xoojiya sii balaariya waxaan rumaysanahay in internetka iyo qorayaasha saxaafadda bulshada social networkska iyo social media inay qayb weyn ka qaataan xiriirka iyo mideynta adeegsiga af Soomaaliya waayo luqadaha shisheeye
سامعين كله دجاجة أفكار سوماليا لغة رسمية أفرنسيسكا إنجليزكا إيطاليانية حاليا يسوعية معها لغات ضد أوردن أي أليكسر كران لكن لغة الصومالي وقف كي مرة تحفها هي الأتيكا بدو أفسر كرو وما أليكسر كرو وحاليا الدوين ومسؤولية قاعدة والد الصومالية يكونون قربها kuwaas oo dadaal dheeri ah u galan dib badanna kala kulma sidii ay kuwadkooda ugu awoodin lahaayeen afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyagoo ka fog dagaaladoodii ay ka soo jeedeen sidaas daraadeed waxaan hadaba halkan tala ahaan iyo farriin ahaan ka soo jeedinaya ka shaqaynta dib u soo noolaynta adeegsiga Soomaali saldhigta daryeelka aqoonyahanka iyo aqoonka Soomaaliyeed ee ku howlan horumarinta ummadda iyo farqa Soomaaliyeed akademiyadii cilmiga fanka iyo suugaanta khaasatan dhinaca Soomaaliya joogtaynta qabashada dood-cilmiyeedyada iyo cilmi baarista lagu horumarinayo afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed maamuusidda iyo aqoonsiga aqoonyahankeena Soomaaliyeed ee u soo dadaalay qorista iyo faafinta af Soomaaliya sida in magacyadooda lagu waariyo goobaha waxbarashada waxaan rajaynayaa in dood-cilmiyeedyada suugaan wadaagga daafurka buugaagta gaar ahaan أبوانك أما قاموسك وين يا سومالي هذا الشيء يعوي سجانيك وجرا وشها قرن كان من أي أسرة رمضان يقول حكمة يطيرين وحكتر الدوران تروين وحكتر الدوران حسنت الإنسان بجدا فرطة في أفريقيا سومالي الدبا وشها شركة وآد نوصل شركتين من مسؤولية نادينة أيام كل صوم هاي من القرآن كان مطلع الصعوني نظر من الضلع وأي قصة بحان تلوي الواقع يوم واحترنا قرآن أفضل يفرق الصومالية هذه أنت صوت وراليا راضي عن ربيعنا كان كذا عن فساد الرباعية هو فاينيستو لكن بما من الكلمات السورية على الصومالية أري أما أراح عن مرة بيران أنا رجع إلى مرة العلم وأيتها وحيد العلم تكوينا إن أنا نتكلم لكن الجيران يحكون أبوه دورك إن أمهات اليوم أنا بعض مع جنوب الصومالية يبدأان ضد الصومالية إن أمهات اليوم لكن إسماعيل عمر ديلي الشعب الرجل غير مستعجل أي صومالي سو غير مستعجل الذي يكون كتب بيصير أيضا وتقوم الرسول على الرسول إلى مدون سلاشتي إلى إيمان الجنود وأيحوك يحاولك العقل وحيد هذا المسؤولية إن يقول الصومالي يجب سوى رفض استاذه ومغير استاذه وبدأ كاسكي كرشتاك